بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله daawadayaal kusoo dhawaada Raacayam Channel. Axmed Hussein Diidaad waa caalim muslim ah oo bartay cilmiga isbarbardhigga diimaha. Axmed Diidaad wuxuu ku dhashay magaalada Suurad oo ku taala dalka India 1 July sanadii 1918. wax yar kadib dhalashadiisa aabihiis South Africa ayuu shaqo u soo aaday. Diidaad markuu noqday 9 sano jir South Africa ayuu soo aaday. bilooyin kadib waxaa geeriyooday hooyadiis. Diidaad dugsi hoose ayuu galay markuu imaaday South Africa. wuxuu ahaa arday dadaal badan. markuu noqday 16 jir oo uu awoodi waayay inuu waxbarashada sii wato duruufo dhaqaale awgood, wuxuu ku qasbanaaday inuu nafsadiisa u shaqeysto. suurtagal ma tahay taxriifkan aynu sheegayna halkan hortayda waxa yaala kitaab yar oo qoray caalim muslima oo wada taqaanimo filay Axmed Diidaad barrito ayaaba ku leeyahay Stockholm muxaadara dood ay nin wada galayaan oo nafs الموضوع uu kaga warramayo Bible kuma yahay kitaabkii Allah uu kaga warramayo. kun 936 Diidaad oo ah nin alaabta jiifka gada ayaa maalin maalmaha ka mid ah la kulmay niman Kiristaanka faafiya oo dadka Islaamka kiristaameynaya. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sheegaya aad ayuu uga xumaaday, laakiin muusan lahayn cilmi uu isku difaaco. labada diimoodna muusan aqoonin, tiisa iyo ta Kiristaankaba. markaas ayuu Diidaad go'aan ku gaaray inuu labada diimood barto. Diidaad wuxuu bilaabay inuu baaro labada diimood. wuxuu ka bilaabay meesha ugu muhiimsan oo ahayd inuu barto shubahaadka ay muslimiinta ku fureen jawaabahooda iyo inuu barto khaladaadka diinta Kiristaanka. boogii ugu fiicnaa markuu bilowga ahaa uu ka faa'iiday wuxuu ahaa idhaarul xaq. Diidaad isla markaas ayuu bilaabay inuu la hadlo kuwa Kiristaanka faafiya, kuwaasoo awoodi waayay inay ka jawaabaan su'aalihiisa. 3 sano ayuu joogay meel lagu barto diinta Islaamka iyo sida qofka Kiristaanka ah diinta loogu sheego. 1949 Diidaad iyo qoyskiisa waxay u guureen Pakistan, halkaas oo ay joogeen 3 sano. 1957 Diidaad iyo asxaabtiisa waxay fureen xarun ay ku magacaabeen Islamic Propagation Center, xarunta baahinta Islaamka oo ay ku daabacayeen buugaag Islaami ah, waxaana ay ku barayeen dadka diinta Islaamka goordhow qaatay. waxaa kaloo meesha imaan jiray dad rabo in loo sharaxo diinta Islaamka. قل in Arabic will say, we are told to say, tell them. Ya Ahl al-Kitab, so O people of the book, O Jews and Christians, La taghlu fi dinikum. He says, do not go to extremes in your religion. In your religion, whatever you believe, don't go to extremes. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. And don't say anything about God except the truth. إِنَّمَا الْمَسِيحِ, most certainly the Messiah, Jesus Christ. Isa ibn Maryam, Jesus the son of Mary, Rasulullah, is a messenger of God. Allah says in the Quran, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Do not the unbelievers see? These atheists, these agnostics, those who say that there is no God, can't they see? أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. That the heavens and the earth were joined together as one unit of creation. فَتَقْنَاهُمَا, and he split them asunder. 1985 waxaa bilowday in Diidaad South Africa ka banaanka laga barto markuu bilaabay inuu dibadda khudbado ka jeediyo. 1986 waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta King Faisal howlaha uu Islaamka u qabtay awgeed. Diidaad markuu noqday 66 jir wuxuu bilaabay 10 sano oo halgan adag ah asagoo khudbado ka jeedinaya daafaca caalamka. بالنار الصورة ليست واضحة تماما ولكنها موجودة، فلديكم 3 صور ذهنية مختلفة، ومهما حاولتم فلن تتطابق هذه الصور الثلاث في صورة واحدة. سيكون في ذهنكم دائما 3 صور، ولكن حين أسألكم كم صورة ترون تقولون واحدة وتكذبون علي. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تكذبون علي. meelaha uu khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ah Sacuudiga, Masar, Ingiriiska, Switzerland, Pakistan, Mareykanka, Denmark, Sweden, Canada, Kenya, Australia iyo wadamo kale, kuwaasoo ay kasoo qayb geli jireen kumanaandada iyo doodo uu la galay professorro iyo baadiriyaal. nimanka uu la dooday waxaa ka mid ah Dr. Anis Sharrosh, Gary Miller,
Pastor Stanley, Robert Douglas, Pastor Eric Bock, Floyd Clark, Jimmy Swaggart, Paul Finley, Josh MC Doyle iyo kuwo kale. diidaad markuu doodaha ku jiro wuxuu ahaa nin hadal kar ah oo haddana aad u kaftan badan taasoo ka dhigi jirtay dhigiisa inuu kululaado. والمسيحي يقول إن الأب إله والابن إله والروح القدس إله، ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد. وفي تعاليمه الدينية يستطرد ويقول إن الأب هو العظيم والابن هو العظيم والروح القدس هو العظيم، ولكنهم ليسوا الثلاثة العظماء بل العظيم الواحد. ويستطرد فيقول الأب شخص والابن شخص والروح القدس شخص. هذا ما يقوله الأخ سواغر في كتابه، شخص وشخص وشخص، ولكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص بل شخص واحد. وإني أتساءل بأي لغة تتحدث. su-aalihiisa uu caanka ku ahaa waxaa ka mid a su-aashan: Brothers, sisters, I would like you to do me a favor. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement, anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. And by God, even tonight, May 3, 1996 Axmed Diidaad waxaa ku dhacay cudur loo yaqaano stroke kaasoo ka dhigay inuu qoorta baaraleys ka noqdo hadalkana uu goho. waxaa loo qaaday King Faisal Hospital oo ku yaalay Riyadh, Sacuudiga. 9 sano ee ugu dambeysay cimrigiisa Diidaad wuxuu ku qaatay South Africa asagoo sariir saaran. waxaa daryeelayay xaaskiisa Xaawa. waxaa booqasho looga imaanayay dhammaan daafaha caalamka ayagoo uga mahad celinaya shaqada uu qabtay islaamka. dadkii soo booqday waxaa ku jiray Dr. Saakir Naik. Diidaad Saakir Naik wuxuu ku dhahay mar ay kulmeen: wiilkayga 4 sano guusha aad ku gaartay waxay igu qaadatay 40 sano. Saakir Naik wuxuu ugu jawaabay: waxaa suurtageliyay dadaalkaadii aad 40 sano soo waday. 8 Agoosto 2005 Axmed Diidaad wuxuu ku dhintay gurigiisa oo ku yiilay magaalada Verulam oo ka tirsan gobolka KwaZulu-Natal ee dalka South Africa. aaskiisa waxaa ka qayb galay dad aad u badan. waxaa lagu duugay isla magaaladaas. 20 biri kadib dhimashadiisa waxaa geeriyooday xaaskiisa. Allah u naxariisto dhammaantood. haddii aad doonayso inay ku soo gaaraan muuqaalada xiga, subscribe taabo. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, wixii faallooyin ahna noogu soo gudbi qaybta faalla bixinta.